soo kabashada dhinacyada dhaqaalaha bulshada soo badanaysa iyo waliba abuurka ganacsiyada ku soo kordhaya magaalada Dhuusmareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug ayaa loo sababaynayaa ammaanka la isku halayn karo ee ka jira magaalada. waa kan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Galmudug oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha kulanka ka socday Hotel City xubno ka socda wasaaradaha gaashaandhigga, cadaaladda, amniga iyo haweenka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug. marka caasimada gobolka caasimada maamul gobolka Galmudug inay nabadgelyo tahay oo mid la isku halayn karo tahay wufuud ka timid dawladda federaalka ayaa nala joogta oo ka kooban wasaaradaha amniga, gaashaandhigga, cadaaladda iyo haweenka kuwaas oo u yimid inay xaqiijiyaan qaab nololeedka looga nool yahay caasimada Galmudug Dhuusmareeb ayagoo aad ugu faraxsan nabadgelyadeeda iyo soo dhaweynteeda iyadoo cid ilaalinaysa aysan jirin ilaahay mooyaan aadami hadda qoralada joogaysa jiray hadda waa artay ku caawinayaan Hotel City dhammaan Soomaalida oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay nagu daydaan horumarka aan ka gaarnay amnigana ay ku daydaan. kala duwanaanshaha magaalooyinka uu maray iyo Dhuusmareeb ayuu tilmaamayaa gaashaanle sare Cabdirasaaq Maxamed Nuur Dimoqraadi oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. waxaa ka socda transportation-ka taliska ciidanka xogta Soomaaliya ee hoosta wasaaradda gaashaandhigga. halkan waxaan u nimid inaan xaaladda bal aragno Galmudug inkastoo ragga la socda wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqlisaanka iyo wasaaradda amniga. laakiin waxa ugu cajiib badnaa waxyaalaha ugu cajiib badnaa aan ku arkay caasimada Galmudug garoonkii aan ka soo degnay ilaa iyo hoteelka aan degannahay taru waxaan ka yimido hoteeladu waxa ka bayr waxa la yiraahdo ku xaydaano istaafiye leeyino ana laftay markaa ka joogo dhowr istaaf iska laayo ilaalin jiro mana iska yimid ba almoodid waxaan xusuustaa xilligii dawladdiisa bana xusuustaaba inkastoo ayaa xusuustaaba marka waxyaabaha cajiib kale oo hadda aan rabo inay ku soo arkay ama waxa hadii la qarin jirayna laakiin imika aan markhaati iga tahayba indhahay oo lagu sii ridooninba meesha weligeed waa sida ku ogaan bay tahay. cawayska dhalinyarada ayaa isna ah mid xilliyada gayaca ay ku gaaraan siday u sheeko wadaagayaan u haasaawayaan una kaftamayaan. haddii aan ka hadlo isbedelka iyo horumarka ku yimid magaalada caasimada maamul goboleedka Galmudug waxaan dhihi karaa wax weyn oo aad u weyn ayaa magaalada iska bedelay haday tahay dhanka bulshada sidoo kale waxbarashada laftirkeeda oo ay jaamacada ku soo kordheen deegaanka. waxaan dhihi karaa laftirkeeda population-kii joogay waxa ku soo kordhay population kale oo la socday maamuladii kala duwanaa ee meesha yimid. waxaan dhihi karaa aad oo weyn ayaa magaalada isbedel uga jira. saacadu iminka waa 12 saqda dhexe iyo qadar daqiiqada ah. halkani waa mid kamid ah garoomada kubadda cagta oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Dhuusmareeb. waxaa dadka halkan ku ciyaaraya kamid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Galmudug Cabdiraxmaan Heelos wuxuuna inoo sheegay in mararka qaar xilliyada dambe ay asxaabtiisu halkan ku dheeraan. waxaad dareemaysaan in waqti xaadirkan aan kula hadlayo ay tahay xilli habeena aan isku soo diyaarinay inaan ka qayb qaadano inaan ciyaarno ciyaartan oo runtii dad dhalinyaro ah oo kala duwan marka ay ku ciyaarayaan habeenkii magaalada Dhuusmareeb runtii waxay ka mid tahay in garoonka la gaaro ilaa waqti dambe 8 saac oo habeenimo oo waqtiyada saacad ay isku bedelaan dhalinyarada halkan ay ku ciyaaraan runtii kubad qiimo badan oo aan caadi ahayn. dadka kale cuslaaday dhalinyarada cuslaatay iyo dadkaas oo dhan ayaa runtii maaragtay ka qayb qaata. waxaad la socotaa ama aad arkaysaa ama daawanaysaa in dad kululeysanaya oo kamid ah dhalinyarada ka yimid xaafadaha kala duwan ay halkan caawa ku ciyaarayaan. isku soo wada duubo magaalada Dhuusmareeb ee caasimada u ah Galmudug ayaa waxay sameynaysaa horumar iyo isbedelo degdeg ku imaanaya. Nafis Xirsi Maxamuud, barnaamijka bandhiga TV-ga Universal, Dhuusmareeb.